waxaan caawa ka sheekaynaynaa xalqaddii koowaad dhaqankii wanaagsanaa ee gabdhaheennii hore lagu ababin jiray annagoo ka soo xiganayna buuggii Hawaalo Waran ee uu lahaa Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi naxariistii janna Allaha siiye. gabadhu hawsha nolosha laga hayo waxa ay ka lahayd qiyaastii 57%. xilal dhowr ah oo culculus ayay huwan jirtay iyada oo inanka kaga waajibaad badnayd nolosha. sidaas darteed waxaa loo baahnaa in tarbiyadeeda culayska la saaro. hooyadu waxa ay u xil saarnayd barbaarinta ubadka iyo guud ahaan maamulka arrimaha qoyska. howlaha waxa ay gaar u lahayd aqal iyo agab samaynta, raridda, furidda, dhisidda iyo lulidda, qalidda, quudinta iyo arrimo kale oo iyada u fudud ama ay ku habboon tahay qabashadooda. hawsha ugu weyn ee ay qaban jirtay waxaa ka mid ahayd barbaarinta iyo waxbaridda gabadha. arrintani culayska ay lahayd iyo tooghaynteedu waxa ay ahayd xilka ugu culus ee nolosha, maxaa yeelay barbaarinta gabadhu waxa ay u dhigmaysay badbaadinta nolosha. ninku waxa uu lahaa maamulka arrimaha guud sida sahanka, oodda, waraabka, difaaca iyo guud ahaan hogaaminta. waxaa dhaqan ahaa in gabadhu marka uurka hooyada soo dhaafto ay sacabsan jirtay hooyada miirqabka iyo miisaanka leh. waxaa ballaysimi jiray ama bilayn jiray hooyo hungurisan oo gabadhu xagga hunguriga ka hidda raacdo. gogol duur iyo dureemaba ka hoosayso ayaa dhinaca bidix loo jiifin jiray. labada bowdo ayaa xarig la isugu xiri jiray si tarbiyadeeda looga bilaabo in ay cawradeeda ilaaliso. tillaabada xigtay waxa ay ahayd marka ay dhalato juudhaba laguma habi jirin caano. waxaa looga jeeday in ay yeelato sabir iyo sugid. waxaa lagala cararayay hunguri, iin iyo dhaliil bar madow ah ku noqda qoyska ay ka dhalatay. marka xuduntu qallasho ayaa la canqarin jiray. magaceeda waxaa laga diiri jiray xilligii ay dhalatay iyo xaaladii jirtay. dhegaystayaal, waa qaybta labaad ballankeena insha Allah.